Assalaamu calaykum. Waxaan maanta idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah xeerar ama qawaaniin bulsheed kuwaas oo muhiim ay tahay inaad ku dhaqanto marka bulshada dhexdeeda aad joogto ku caawin doonana. Waxa uu kooraniga ka kooban qofna ha wicin 2 jeer wax ka badan si joogto ah maxaa yeelay waxa laga yaabaa qofkaasi inuu mashquulsan yahay hana ku celcelinin wicitaanka. 2 haddii qof uu sawir ka tuso telefoonkiisa ha isku day inaad u dhaqaaqdo dhanka midig ama dhanka bidix maxaa yeelay ma ogid waxa ku xiga ama waxa kale ugu jira balse ixtiraam qofka oo waxa uu ku tusay oo kaliyaata ku koobnow. haddii qof uu si toos ah kula hadlayo ha isku mashquulin ama ha ku dhaygagin telefoonkaaga taasi waxa ay muujinaysaa qadarin la'aan. ugu mahadnaq dadka si public ah haddii aad rabto qof inaad dhaleecaysana si gooni ah ula hadal oo meel gaara ugu sheeg. haddii qof asxaabtaada ka mid ah uu kuu sheegay inuu ballan dhakhtar la leeyahay oo uu dhakhtar aadayo si degdeg ah markiiba ha u weydiinin waa maxay xanuunka ku hayaa ama sidee ayaad u xanuunsanaysaa laakiin ku dhaaf waxaan kuu rajaynayaa caafimaad maxaa yeelay ma garanaysid ama ma ogid qofkan xanuunka haya inuu rabo inuu kuu sheego iyo in aanu rabin. hadduu rabo inuu kuu sheegana isaga ayaa qofku kuu sheegaya laakiin adigu su-aasha degdega ah ka daa. ha isku dayin inaad weydiiso dadka su-aalaha karaahiyada ah sida maxaad u guursan weyday, maxaad ubad u dhali weyday, maxaad gaadho u iibsan weyday iyo su-aalaha la midka ah maxaa yeelay taasi ma aha mid adiga shaqadaada ah waa qofkan wax u gaar ah. badanaa ka fur albaabka qofka kugu xiga ha ku tixgelin wiil iyo gabadh kuu yahay sidoo kalena qof weyn iyo qof yar kuu yahay dadka u wada ixtiraam si isku mid ah adiga oo aan u kala eegayn da-dooda iyo jinsigooda midnaba. haddii saaxiibka aad tagsi wada raacdaan lacagtana uu bixiyo maanta isku day adigu inaad beritoole bixiso. ixtiraam oo qadari fikradaha dadka kale waxaanad ogaataa god 6 kuula muuqda inuu qofkan 9 ula muuqan karo. taa waxaan ka wadaa dadku waa ay kala fikrado duwan yihiin isku day inaad dhagaysato fikradaha dadka kale waxa laga yaabaa inay ka saxnaadaan adigaba. hadiiba dad sheekaysanaya aad aragto ha soo dhexgelin markiiba isku day inaad dhagaysato hadalkoodana aad u fiirsato halka markiiba aad si degdega u soo dhexgeli lahayd. ku mahadsanid qofka wax wanaagsan kuu sameeya waayo mahadcelintu waa shay aad u qiimo badan. ma jirto sabab aad u comment garayso ama aad uga faalooto dadka haddii uu buuran yahay iyo haddii uu dhuuban yahay labadaba. waxaad ku ixtiraamtaa qof kastaba muuqaalkiisa hana ka faaloonin una sheeg qof walbana inuu wanaagsan yahay. markaad cid la kulanto ha isku dayin markiiba qofka inaad weydiiso mushaharka uu ku shaqeeyo da-diisa midnaba. su-aalaha noocaas oo kale ahi ma wanaagsana bulshada in la weydiiyo waana waxyaabaha sirta ah ee aan la rabin qofku inuu ogaado. sidaa awgeed ixtiraam dadka. marka laguu soo diro fariin wanaagsan u mahadna qofka kuu soo diray waayo mahadcelintu waa habka ugu fudud ee aad ugu muujin karto qofka ixtiraam iyo qadarin sidoo kalena waa habka ugu fiican ee aad u tusi karto qofka inaad abaal u haysid. waxaan idiin rajaynayaa inay idin anfaceen qodobadani. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin.